tahay hubka dhigis in la sameeyo laakiin hubka waxaa fiican in cadowga horta laga dhigo awoodda cadowga la wiiqo awoodda cadowga markii la wiiqo kabacdi suugsaqajaanka iyo bucadda hubka laga dhigo laakiin hub laga bilaabayo dadkii cadowgu taargadareynayay oo ama ciidamada ama siyaasiyiintii aniga taas sax ila maaha laakiin dawladdu waxay leedahay caasimadii waxaa la rabaa in nabad laga dhigo in dadka aysan hub iska wadanin maqaamkii dawladnimo la soo celiyo marka taa maxaa ku jaban maqaamkii dawladnimo in la soo celiyo hadda waan wada rabnaa laakiin maqaamkii dawladnimo midaana way dhimaysaa haddii hubka dhigdhacayso gobolada soomaaliya oo dhan iyo ka dhacdo ma hal gobol in taargad laga dhigto صح maahan laakiin dagaalada kuwa aad cadowga ku tilmaamayso dabcan way socdaan meelo kasta ha ka jireen oo gobolka laakiin muqdisho waa caasimadii in dawladii looga dambeeyo ammaanka oo wixii qori wata ay noqdaan ciidan dawladda ka tirsan oo kaliya maxaa dhibaato ay keenaysaa waaba fiican tahay waxa laga dhigo haya ciidankii dawladda maahan dawladda dhexdeeda ayaa hubkiiska dhigo waysa maaha shacabba maaha waxa la aado waa dawladda gudaheeda laakiin nin kasta oo ama mas'uul sheeganayo oo dawladda ka mid ah maleeshiyaad isaga u gooni ah oo aan dawladda u diiwaan gashanayo muqdisho wataa ninku wuu gadan yahay dawladduna iyadan xilooda sameeyey marka ninku waa dawlad xalada ka soo koro waradii soo geeya soo kama fiicnaan in dawladda cadaadis lagu saaro in ay iyada ammaanka siyaasiyiinta iyo dadka hadda hubaysan gudaha magaalada jooga in ay sugto oo iyada lagala xisaabtamo halkii la dhihi lahaa maxaad ku qaadaysaan in lagala xisaabtamo way fiican tahay xisaabtankiyaaba sidaas dadkee dadka inaan baylaan looga dhigin cadowga oon dadka hadda qorayaa lagu jiro waaye cadowga asaantoo rey ku jirin waayo waxaan ka hadlo weyno marka in cadowga in la wiiqoonta cadowga dalka laga saaro kabacdi waxa kale loo soo dhigto waayo waxaan ka hadlayno maga maa dawladnimada waad ogtahay oo sida loo soo dhaweeyey madaxweynaha soomaalidu hadda sideeda waaye laakiin waxa la sugayo ma ahayn in cadowga saxdoolay looga dhigo waxa la sugayo ma ahayn magar laakiin shaki waxaa jira in dad ganacsata iyo shakhsiyaad siyaasiyiin ah ay magaalada dhexdeeda tiknika ku haystaan oo hub culus ku haystaan oo iyaga naftooda halis ku noqon karaan jiritaanka dawladda taasa la gaaro hadday wax bilaabaan ha lagu tago laakiin waa in cadowga laga xureeyo marka ma iyadoon cadowgii laga xureeyna cadowgii loo xureeya shabaabka oo kale iyagu dagaalkooda uu iska cad yahay laakiin ninka hub tiknika haysto oo aan mas-uul military ahayn oo aan xero ciidan joogin oo gurigiisa hub u yaalla in loo daayo inaad qabto adiga meesha maba ku garanayno tikniko annaga aan dawladdu lahayd magaalada muqdisho kumaba dhex garanayno koragana waxa laga qaado hayo beryahan waan arkaynay waa dadka ciidamadii shaqooyinkoodii amba ku socday amba ka socday marka aragti ahaan waxaan leeyahay anigoon qabaa in cadowga awoodiisa la wiiqo shaqooyinka kalena dawladdu iyo waajibaadkeeda gudato ciidamadeeda xiloodan u samayso hubka ninkii fasax qabaayo jaayo hubka xagga ka dhigo hatiga ido cadowga asigoon askarigu cadowga isaga cabsayno magaaladii nibira u tahay meel u maraayo meel service laakiin ninkaas waa qoradiisa ku gambanayo kii kaloo shabaabkaana qoradi hayso siyaasiga qoradi laga qaadurto asigu hala gowracoma dawladdu hadda waxay ku adkaysanaysaa inay tallaabadaasi qaado hubka sharci darrada ah ee dadka gacantiisa ku jiro ay dadka ka qaado marka maxaa dadka hubka haysaad kula talin lahayd adiga anigu hubka sharci darrada hod sheegayaana bagarahayn anigu hubka sharci darrada anigu halka shabaabku haystaan u ah hubka sharci darrada waxaa weeye ninka aan ciidan military ama boolis ahayn ee hubaysan ama gurigiisa ku haysto ama ilaalo qabiil ay waardeynayaan waxa hubka laga dhigo hayo ayaaba ciidankii qaranka ahay ayaanto oo lagu kabnayo magarata marka shaqada waxa madina ka dhacayay askari military ayay waxa hubka laga qaadayay dagaalka uu dhaxmaray marka maxaa saxbiyad gaara waba ciidamadii waxa uu dawladdu ku malgantahay marka askarta adigu mid sharciya iyo mid sharci darrada ma kala taqaan adiga mid sida joogta mid sharciya ma kala taqaan